gudoomiyaha jaamacadda Summerfield iyo gudoonka jaamacadda iyo macallimiinta iyo ardaydiisa iyo aqoon-yahanada kale ee sharafta leh ee meesha fadhiya dhammaan waa idin salaamayaa farxad weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo shirkan maanta cilmi baarista ah kii ugu horeeya ah ee jaamacaddu qabato farxad weyn ay noo wada tahay dhammaanteen farxadaas ka sokow muxuu ahaa mar haddii halkaa la isoo istaajiyo waxaa laga maarmaana marka inaan dhowr kelimo idhaahdo dabcan cilmi baaris marka laga hadlaayo wax badan cilmi baaris laga sameeyaa beeraha laga sameeyaa xoolaha laga sameeyaa bini aadamka laga sameeyaa bii'ada waxa laga sameeyaa cilmi baaris adduunyadu waxay ku dhisan tahay cilmi dadka waxgaradka ah ee adduunyada joogaan waxay soo baareen bay dhaqan geliyaan marka anigu waxaan ka shaqeeyaa marka cilmi baaristaas marka laga hadlaa waxaan ka shaqeeyaa taariikhda iyo culumta siyaasadda ayaan ka shaqeeyaa halkaan marka waxaan rabaa inaan xoogaa idinla wadaago mas'alada ugu muhiimsan ee in la baaro u baahan oo waxay ila tahay maskaxdayna runtii aan aad laga yaabo inaysan ku xooganayn waxa ugu muhiimsan waxaa waaye dalkayna muxuu dowlad la'aan u yahay maxaa dowladnimadeenu dhisma la'dahay dowladdeena maxay u duntay burburka dowladnimadeena maxaa keenay maxaa yeelay haddii aan cilmi baaris ka samayn lahayn 32 sano miya 3 sano 33 sano xaaladayna sidaa ma noqoteen anu koon cilmi baaris samayn ayaan maalin kastaba waxaan dhisayna marka maamul amba dowlad amba shir aan dhahayna dowladda lagu samaynayaa dowladahayna waa ka cilaayi aqoon-yahanada waxaa laga rabaa horta beerahana waa loo baahan yahay cilmiga kalena waa loo baahan yahay iyo baaris kaste laakiin asalku waxaa waaye meelaan dowla ka jirin wax weyn oo ka suuragelaya ma jirto dowladnimada ayaa inkaar nooga dhacda marka annaga haddaan Soomaalina inkaarta ku dhacda marka waxaa la rabaa in la soo saaro Sooma taasa waxaan rabaa inaan dhowr kelimo ka idhaa marka waxaan rabaa inaan ka idhaahdo guri marka uu soo dumaayo gurigaan hadda marka uu soo dumaayo oo la soo weydiiyay su'aal gurigaan maxaa dumiyey saddex arrin baa lagu sheegi karaa ka badan ma sheegi kartaan saddex arrin la sheegi karaa gurigaan maxaa dumiyey kow gurigaan bannaankaa laga dumiyey madaafiica ku dhacday soo maa tsunamiya ku yimiday dabeel xoogganaa qaada gurigaan waa dhihi karaa soo maa bannaankaa guriga laga dumiyey waxaa kaloo la dhihi karaa gurigaan si qalloocana loo dhisay injineerada dhisay ayaa si aan sax ahayn u dhisay marka guriga maadaama si aan sax ahayn loo dhisay guriga waxaa dumiyey injineer xumaad adumis qodobka saddexaadna waxaa la dhihi karaa guriga qalab materiaalka lagu dhisay shamiidadii iyo birti lagu dhisaa la khayaanay oo shamiido iyo birti injineerku waa fiicnaay laakiin shamiidada iskama fiirin muxuu birtana ma fiirin shubki ma fiirin marka arasax khaldan iyo shub khaldan ayaa lagu sameeyay guriga marka materiaalkii wax lagu dhisay ayaa khaldanaa Soomaaliya marka dowladnimada waxaan ka soo qaadaynaa gurigaas aan ka soo qaadaynaa marka bannaanka ma laga dumiyey haadhahe waa laga dumiyey bannaanka jabhado qoryo wato oo dowlado ajnabiya soo abaabulaan ma laga dumiyey waa laga dumiyey bannaanka haye si khaldan ma loo dhisay waxaa sida khaldan loogu dhisay dowladdii reer galbeedku keeneena waxaa leedahay dowladdaasaa fiican dadkiinuna waa xun yihiin shacbigiina waa xun yahay waxaa jira shacbigiinu waana muslim waana qabaa'il soo maa Soomaaliya maxay tahay waa qabaa'il muslim ah waa marka qabiilkana waa lala diriray afkaa lagala diriray run ma ahayn islaamkana waa lala diriray soodaas ma aha marka waxaa lala diriray aas-aaskii bulshadaanu ay ahayd aas-aaskii baa lala dagaalamay marka waxaa waaye dhismihiina waa khaldanaayo dowlad waxaa timid marka dadkeeda colla ah dowlad dadkeeda colla ah waxay lama tahay marka ruux caqli xun oo geedkii aw saaraa hoosta meeshaan uga goynaya sidaasaa marka dowladnimadu ku soo dhacday materiaalkii lagu dhisay say ahaayeen ayakana materiaalka dowladda lagu say ahaayeen materiaalku waa aqoon-yahanada marka
وهجانك أقوان تله كوا معمول كحيا كوا هي أده ملاحظة كأه أنت كوا كباس تقدر لأكت هوا كباس تجا أقوانه ضد كأنه اللي هو أيا كان كم رمه كباس تجا حتى كوا كباس تجا في عشان هذا لبسيه وحال السياق كوا أن كباس تله هنا عشان هذا دوليبه إسكتنا في كباس تجي هراء الدولة مركان هينبا كباس تجا نادي هذا مهسي مركز الدولة سأجريسا ماتيريال lagu dhisay ba capacity-ga loo isticmaalayo maamulnimada iyo dawladnimada capacity-gaas aad u hooseeyo si qaloocan loo dhisay banaanka laga duminayo ma jiri kartaa dawladdaas marka mas'alada marka taageerto waxa waaye haddaan rabno inaan dawlad noqono oon ummad noqono waxaa laga maarmaan saddexaas arrin saxan